السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلنتو عن وناكسن دمان صاحبada ku xiran janaalka waa qaybtii 13aad qisada wiilkii goobay wadada guusha. qaybtii 12aad waxay noo joogtay wiilkii yar oo weydiiyay hadiiba aan ruux iskhilaafno maxaan sameeyaa. xaakimkiina wuxuu ugu jawaabay waxaad sameysaa shay aad u muhiim ah oo ah inaad la tacaaduf. wiilkii yar ayaa weydiiyay oo muxuu yahay tacaaduf. xaakimkii anigu waan ku arkaa oo aan ku maqlayaa waan ku dareemayaa intaa kadib haddana ku weydiinayaa markaan isla tacaadufayno adiga iyo aniguba isku meel ayaan wada joognaa, laakiin haddii aanu tacaaduf jirin waxaan isku noqonaynaa lid. tacaadufku wuxuu kuu suuragelinayaa inaad ruux la xiriirto, taasina waxay xalinaysaa mushkiladda idin dhex taala. waxaa muhiim ah inaad ruuxa kale dhageysato, taasina waa sababta Ilaahay uu af kaliya inoo siiyay, laakiin xigmadda ku jirta in Ilaahay laba dhagood ina siiyo waxay tahay inaan dhageysano in ka badan inta aan hadlayno. hadal waxa ugu qiimo badan kiisa gaaban ee haddana aad wax ku fahanto. marka aad dhageysato adiga oo aamusan aad baad u fahmaysaa ruuxa kale oo aad baad u qiimeynaysaa waxa uu ka hadlayo, oo adiguna jawaabta aad bixinayso waxay noqonaysaa mid munaasiba. wiilkii yaraa waan fahmay waxaad ula jeedo oo ah inaan dhageysto in ka badan inta aan hadlayo, laakiin maxaa loola jeedaa inaan aamuso? xaakimkii waxaad ku maqli dhegtaada, qalbigana waad ka aamusi. haddaba halka waxaan ka oranayaa waxa aad tidhi waa heer sare, waxaad tidhina waa shay muhiim ah oo weyn, laakiin sidee baad arrinkaa u samaysay? anigu waxaan danaynayaa inaan fahmo sida aad u samaysay. sidaa ayaad ruux kaga dhigaysaa mid kuu soo dhawaada oo wax badan kuu sheekeeya, maxaa yeelay waad dhageysanaysaa. dhageysigu wuxuu dhaliyaa ihtimaam iyo xiiso. ihtimaamku wuxuu dhaliyaa jacayl qalbiga ka yimid. wiilkii yaraa ayaa yidhi waa heer sare. markii ugu horeysay ee aan maqlo faraqa u dhaxeeya maqalka iyo aamuska. haddana wuxuu yidhi haye haddana maxaa ku xiga tan? xaakimkii anigu aad baan kuugu faraxsanahay. iminka waxaad noqotay mid aad u jecel inuu wax ogaado oo doonaya inuu wax badan barto, taasina waa dariiqa guusha. waxaana horay ugu sii soconaynaa marxalado kale. wiilkii yaraa ayaa yidhi intaa kadib maxaa xiga? xaakimkii waxaa xiga dhoola cadayn. wiilkii yaraa ayaa yidhi dhoola cadayntu maxay tahay? ninkii dabcan ma maqashay hadalka rasuulka sallallahu calayhi wasallam, nabadgelyo naxariis korkiisa ha ahaatee, walaalka wejigiisa oo aad u dhoola cadaysaa waa sadaqo. kadibna wuxuu yidhi miyaad ogtahay in wejigaa uu ku sugan yahay 80 muruq? marka aad dhoola cadayso waxaad adeegsanaysaa 14 muruq. xubin kasta oo wejiga ka mid ahna waxay ku xidhan tahay unug caqli. unugyada caqligana ee maskaxda ku jira jirka ayay u raaxeeyaan. marka aad dhoola cadayso wejiga wuu raaxaysanayaa oo wuu nasanayaa, oo sidoo kale maskaxduna way nasanaysaa oo haddana jirka nasanaya. taasina waxay keenaysaa inay korodho maadada la yiraahdo adrenaliinta jidhka ku jirta. wiilkii yaraa maxaa looga jeedaa adrenaliinta? xaakimkii adrenaliintu waa maado kordhinaysa jihaaska difaaca jirka. dhoola cadaynta faa'iidadeeda intaa oo kaliya maaha ee dhoola cadaynta waxaad qabadsiinaysaa dadka kale oo ruuxa kale marka uu arko qofka oo dhoola cadaynaya isaguna sidoo kale wuu dhoola cadaynayaa oo faa'iidooyinkii aad heshay mid lamida ayuu helayaa. wiilkii yaraa oo ka waran haddii uu ii dhoola cadayn waayo? xaakimkii adigu tacaaduf oo dariiqa toosan ku hogaami. wiilkii yaraa oo maxaad ula jeedaa hogaamin? xaakimkii ku hogaami dhoola cadayn waa mid la isqabadsiiyo. markaad dhowr jeer dhoola cadayso ruuxa kale wuu bilaabayaa inuu dhoola cadeeyo. marka uu ruuxaasi dhoola cadeeyana
waxaad arki in qayb kasta oo jirkiisa kamid ah ay ku duceynayso. Maxaa yeelay markaad adigu dhoola cadeysay ayuu dhoola cadeeyay, taasoo keentay in qayb kasta oo jirkiisa kamid ah ay nasato. waxaad ka heli markaad xasanaad qayb kasta oo jirkiisa kamid ah, waxaad xasanaad iyo ajir ka heli beerkiisa, beeryarada iyo kalidiisa iyo wixii lamid ah. sidaas ayaad meel kasta oo jirkiisa kamid ah uga helaysaa ajir iyo xasanaad. dhoola cadeynta noocan ah culimada Shiinuhu waxay ku magacaabaan dhoola cadeynta gudaha. dhoola cadeyntan gudaha markii ay culimadu baaritaan ku sameeyeen, waxay ogaadeen inay soo saarto maado lagu magacaabo Chulei-Koojin. maadadani waa sida malabka madow, bal haddaba ka fikir, markaad adigu dhoola cadeyso waxaad helaysaa maadadaas, ruuxa kalena wuxuu helayaa maadadaas, taas oo ruuxii dhoola cadeeyay siinaysa caafimaad. taasina ay keenayso in xubin kasta oo caafimaad hesha ay ku duceyso. wiilkiira, anigu aad baan ugu faraxsanahay uguna raaxaystay inaan halkan imaado. aadna waan ugu faraxsanahay inaan dhibaatada safarkan dusha u rito oo aan ku sabro. ninkii ayaa yidhi, ma aragtay in markaad isku xilqaanto inaad shay qabato aragtidaada mustaqbalna ay tahay mid ku cad oo aad noqoto mid ku sabra dhibta. waxaas oo dhan waa deeq xagga Ilaahay ka timid, oo waayo waxaad dhici lahayd inaad daasho, laakiin Ilaahay ayaa kugu caawiyay sidii aad hawshan u gudan lahayd ee aad ugu sabri lahayd. dariiqa guushu kuma xidhna oo kaliya maadada. maadaama aad doonayso inaad dariiqa guusha gaadho, ogow dariiqaasi waa ka adduun iyo aakhiraba aad ku guuleysanayso. haddii guushu ahaan lahayd mid adduunyada oo kaliya, waa guul ku dhammaanaysa marka aad xaqiijiso oo kaliya. oo marka aad guuleysato waxaad arkaysaa in naftaadu aanay dareemeyn saacado dhammaystiran nolol fiican. waa laga yaabaa inaad dareento waxoogaa macaana, laakiinse dareemaysid saacadaada dhabta ah, nolosha fiican ee dhabta ah. maalku suuragal maaha inuu caafimaad ku siiyo. maalku kuma siin karo naftaada oo degta oo raynrayn iyo raaxo ku noolaata. waxaas aan soo sheegnay oo dhan waxaad ka helaysaa ku xidhnaanshaha Ilaahay subxaanahu wa tacaala. Ilaahay baa markaa albaabadiisa khayrka leh kuu furayo, kaa saari dhib kasta oo aad ku sugan tahay. intaad nooshahayna waxaad xusuusan in aanu marnaba carabkaagu ka daalin akhris. ku xidhnaanshaha Ilaahay wuxuu sabab u noqonayaa inay kuu furmaan albaabo badan oo aanad filayn. Ilaahayna kaa arsaaqo meel aanad ka filayn. waa laga yaabaa inaad inta aad nooshahay la kulanto dhibaatooyin badan oo xal kaaga baahan, laakiinse marka ay maalmaha iyo sanaduhu dhaafaan ee aad gadaal dib u fiiriso, waxaad ogaani in wixii kuu dhacay uu ahaa wax wanaagsan oo kuu fiican. haddii aanan taasi dhicin lahayn, lagama yaabeen inaad heblaayo guursato. haddii aanan taasi dhicin, lagama yaabeen inaad shaqada hesho, amase sida iminka aad u guuleysatay umaad guuleysateen oo kumaad taagnaateen dariiqa guusha. wiilkii yar ayaa ku jawaabay, iminka waan gartay dariiqa guusha. marka hore waxaan u haystay in waanooyin iyo naseexooyin uu qof siiyo aan guusha ku gaari karo. xaakimkii ayaa yidhi, wiilka yarow, naseexooyinku kutubta ayay ku yaalaan, waxa kale oo taala hareerahaaga, laakiin xigmadda meesha ku jirta waxay tahay inaad eegto quruxda abuur. wiilkii yaraa wuxuu ku jawaabay, waan gartay dariiqa guusha, waxaaba iminka igu adag sugitaanka maridda dariiqa guusha sare. ninkii ayaa dhoola cadeeyay oo ku yidhi, waxaad ilowday shay aad u muhiima. wiilkii yaraa ayaa yidhi, waan ka xumahay. xaakimkii, maxaad ka xun tahay? wiilkii wuxuu yidhi, anigu iminka dhabtii waxaan ku taaganahay dariiqii guusha. wuxuuna eegay ninkii xaakimka ahaa, wuxuuna ku yidhi, waxaan doonayaa macluumaad dheeraad ah. xaakimkii ayaa yidhi, shayga muhiimka ah oo aad hilmaantay waa cafiska. intaa aynoo joogto qaybtii 13aad qisada wiilkii goobay wadada guusha. haddii aad nagu cusub tahay nagu soo biir, haddii aad hore nala joogtana la wadaag saaxiibadaada. mahadsanidin.